السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa balad media ku soo dhawaada xog aan aruurinay afartii sano maxamed cabdullaahi farmaajo oo dalka xukumayay lix qalad oo waaweyn ayuu galay afar ka mid ah ayaa dhiig ku daaday halka laba kalena aysan dhiig ku daadan afartii sano ee madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa dalka ka dhacay lix weerar oo afar ka mid ah uu dhiig ku daatay halka laba kale oo aan dhiig ku daadan lagu daro liiska weerarada dhacay muddadii xilhaynta ee madaxweyne farmaajo weerarkii ugu horeeyay ayaa dhacay dabayaaqadii sanadkii 2017 waxaana lagu qaaday guriga hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ugu yaraan 5 qof oo ilaalo ahaa ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay dad uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur muddo toddobaadyo ayuu dalka galay xaalad aad u cakiran oo dhanka ammaanka iyo siyaasadda gelisay xasilooni darro madaxweyne farmaajo ayaa markaas dalka ka ahaa madaxweyne muddo 10 bil ah dowladda Soomaaliya ayaa magdhow siisay ehelada dadkii weerarkaas ku dhintay 2017 weerarkii labaad ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka sanad kadib weerarkii lagu qaaday guriga cabdiraxmaan cabdishakuur ciidamada Itoobiya ayaa bishii Sebtembar 2018 qabtay Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur waxaana kadib ka dhashay banaanbaxyo sababay in la toogto 15 qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sababta isku dhaca ciidanka iyo dadweynaha ayaa ahayd joojinta banaanbax ka dhan ah dowladda laguna dalbanayay in lagu sii daayo Abu Mansuur taas oo ugu dambeyn lagu guuleysan Abu Mansuur ilaa hadda waa maxbuus bilaa maxkamad u xiran dowladda weerarkii saddexaad ee dalka ka dhacay inta uu xafiiska jooga madaxweyne farmaajo ayaa lagu qaaday hogaamiyihii maamulka ahlu sunna ee gobolada dhexe maalmo kadib markii madaxweyne loo doortay Axmed Cabdi Qoorqoor dagaalkaas waxaa ku dhintay dhowr qof waxaana ku dhaawacmay tiro kale hogaankii ahlu sunna ayaa ka baxay dhuusamareeb markii dagaalka loogu guuleystay waxaana ahayd 12 sano kadib markii ugu horeysay oo ay dusha xijiyaan magaalooyinkii ay ka xureeyeen al-shabaab weerarkii afaraad ee ugu dambeeyay ayaa dhacay 19 Febraayo 2021 waxaana lagu qaaday hotel ay deganaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale gudoomiyihii hore Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana sidoo kale maalinkii la weeraray shacab dhigayay dibadbaxyo nabdoon siyaasiyiinta mucaaradka ayaa weerarada dalka ka dhacay muddadaas isla markaana loo geystay siyaasiyiinta ama dadka shacabka ah waxay ku daraan weeraradii lagu qaaday guriga Generaal Cabdi Qaybdiid taas oo dhacay maalmo kadib weerarkii hogaamiyaha xisbiga wadajir weerarkaas ilaa hadda si faahfaahsan looma sheegin sidii uu ku dhacay hase yeeshee waxaa loo xalliyay si hoose culeysyadii siyaasadeed iyo kuwii amni ee la saaray gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ayaa qayb ka ahaa dhacdooyinka waaweyn ee dalka ka dhacay 4 sano ee laguna tilmaamo weerarada tooska ah iyo kuwii ugu dambeeyay ee wadooyinka looga xiray 15 xildhibaan ee ka tirsan golaha shacabka dhammaan weeraradan waxay muujinayaan in madaxweyne farmaajo uusan labayn doonin inuu awood u adeegsado cid kasta oo aan ku ra'yi ahayn waana wili wax socda oo weerarkii ugu dambeeyay lagu qaaday musharaxiinta wuxuu dhacay wax ka badan bil